anigu guriga aan ku noolahay laba qof qaadsiiyo labadaa qof intay soo baxaan qofba uu qaadsiiyo saddex qof oo kale lix bay noqdeen lixdii markay haddana sii qaadsiiyaan kiiba saddex qof oo kale sii qaadsiiyo 18 bay noqdeen 18kii markii midba saddex qof sii qaadsiiyo waxay noqdeen 48 iyo sidaas baa xanuunkaani wuxuu u noqday mid dilaaca kaliya maaha ee mid fidistiisu aad iyo aad xawli ugu socoto hal qof ilaa kumaankun si dhaqso ah ay isku gaarsiin karaan ma aha sida xanuuno badan oo waxaa jira ka dilaa badan laakiin aan qaadsiintoodu ay ka gaabinayso ama ka yar tahay xanuunkan wuxuu adduunka kaga yaabiyey waxa weeye xawliga uu ku socdo ee ah inuu qaadsiiyo iyadoo dadkii ku galaaba oo intaas sii qaadsiinaya kuway sii galaan intaas sii qaadsiinayaan kuwa kale sii qaadsiinayaan kadibna waad maqasheen maanta dalka adduunka ugu weyn 300,000 qof buu dhaaf waxaa taa ka daran tirada la sheegayo waa tiro yar oo la baaray oo maxaa lagu baaray ama xumad baa ama calaamad kale ayaa laga baaray malaayiin baa suuqa soconaysa oo aan calaamadihii weli ka muuqan ee suuqa soconay ama isqariyey oo iyagu maaragtay tagayn goobihii caafimaadka lagu baarayo marka tiro kastood haysataan waxaa la aaminsan yahay inay intaas oo kun ka badantay kana fara badantay dalalka qaarba intay dad u baaraan ayay u kala xawli badantay qaar baa baaraya maaragtay inta xanuunka ka soo baxo keliya qaar baa baaraya maaragtay intaa iyo intay sii taabteen qaar baa baaraya dad badan oo wadooyinka ay maaragtay baraya baaritaankaas lagu kala badan yahay ayaa noqday hubka ugu faraha badan ee maanta inta lagu ogaan karo sidii bahalkan looga hortegi lahaa coronavirus xawliga uu ku socdo kale waxaa ka mid ah muddada hore ee uu qofka galo waxba calaamad ma leh waa wax yaroo kooban 10 casho 14 casho waxba laguma arko qofka dad buu soo taabtay dhiiggiisu ku jiraa laakiin si dhaqso ah waxa uu gudbaya wiigii 10 casho kale ee maaragtay xanuunku muuqanayay magaca xanuunkan SARS aad maqasheen waxa ku jira erey la yiraahdo acute macnaha si degdega ayuu neef mareenka u joojinaya si degdega ayuu neef mareenka u joojinaya marka waxaa dhacaysa 20 casho kadib haddii uu galo xaaladaha adag inuu 20 casho kale kadib geeri ay ku timaado waad aragteen in la tirin kari la yahay meedadkii maalin walba 1,000 qof ay hortaada iyo tviyada aadoo arkayo walaalayaal oo ay ku dhimanayaan wuxuu ka oran anaku muslim baan nahay naguma dhaca waxay oranayaan anaku dhalinyaraan nahay naguma dhaca masiibo male qabiil masiibo male bini aadan baan nahay isku nooc baan u samaysanahay isku furana haysanaa uu furanayo maaragtay bahalkaani furanayo haddaba xanuunkan hadduu xawliga intaa tiro le ku soconayo dhibaatada ugu weyn ee uu keenay iska dhaaf dhaqaalaha iyo waxaa dhanka caafimaadka markaan ka hadlayo waa maxay wuxuu soo ridayaa dad ka tanbatay oo ka tiro batay hanaankii iyo awooddii caafimaadka ee dal walba adduunka uu joog oo lahaa imisa sariir baa diyaarsatay imisa maaragtay ventilators bahalaha hawada qaadaad samaysatay imisa dalalkii ugu badnaa ayuu wuxuu ka tiro dheereeyey inta bukaan soo dhaceysa markaaba qalabkii go-a adduunkii o dhan markaasaa gacmaha cirka loo taagay haddii kuwaasi cirka u taageen gacmaha de annaba waan u taagaynahay laakiin taxadirka ayaa diinteenu na faraysa taxadirkeena faraysa weliba annaka waxaa noo dheer bulsho waxaan nahay isku raran qoys walba intay dhaleen kuwii isku dhaxay kuway abti u ahaayeen kuway eeddo u ahaayeen 12 baa qoys walba maaragtay ayaa jira marka laleeyahay guryaha jooga qofka qaaradahaas dadku guriga qof baa jooga ama laba waxaan ka badnayn halkan qofka xanuunka qabaahay wuxuu qaadsiinayaa dadkan sheegay qof kasta uu qaadsiiyaana wuxuu sii qaadsiinayaa 3 qof inta ku dhow markuu soo baxo 3daasina waxay sii qaadsiinayaan qof walbaba 3 kale 3daa kale waxay sii qaadsiinayaan 3 kale si dhaqso ah ayaad waxaad u arkaysaa iyadoo burburtay awooddii dowladnimo ee caafimaadka awood ku sheeganayeen inay wax kaga qaban karaan
lama hayo dowlad dalkan ku nool adduunka oo maanta u haysa itaal ay ku joojin karto iyo itaal xataa ay bukaanadeeda sariiro uga hesho ama se maxaan dhaha ventilator uga hesho ama ay ICU uga hesho walaal bal qiyaasa culayska meesha yaalla qiyaasa iyo dabkii oo soo socda oo la xaqiijiyey inuu imaanayo saacaddaanoo la joogay dad ka imaanayaan Yurub Maraykan oo ay imaanayaan Somaliland ama meel kale imaanayaan dadkaasi hadduu qof kaliya yahay tiradan idiin sheegay baaxadda orodka leh ayuu galay waxaan idin xaqiijinayaa talaal dhow lama hayo sanad iyo ka badan ayaa la filayaa in talaal lagu hayo waxaan idin sheegayaa lama yaqaan xanuunkan adduunkii oo dhan ku faafay oo aan meelna reebin xataa waqtigu dhamaanay cid taqaan ma jiro haddaba madaxda Soomaaliyeed dhammaanteed gaar ahaan madaxweynahayga Muuse Bixi waxaan u sheegayaa dib u xasuus Nabi Yuusuf alayhi salaam isagoo ka soo baxay xabsi oo aan niminimo loo aqoonsan oo aan rasuulnimo loo aqoonsan ayaa ninaan diin muslim haysan ka faa'iidaystay riyo iyo fasir 7 sano oo dagaal isku diyaarin masiibo soo socota ayuu galay annakana indhaheenaan ku arkeenaa meedadkiiyo meel lagu aasan la waayo indhaheenaan ku arkeenaa qaraabadiiyo soo salaami kari la ama meydkii raaci kari la indhaheenaan ku arkeenaa iyadoo xuduudihii inta la kala xirtay saaxiib maantay madax dunida ku nool oo xataa kulantaa ma jira madaxweynaha kale ka baqaya ama dadka kale soo qotay maraya bal meeshay maraysa qiyaas dhaqaalihii adduunka wax allaale wixii wax soo saari jiro dhan waa istaageen 89% maxaa ka dambeynay way dunidu say isku ragaysa maanta waxa ka badbaadaya cid ilaahay u dhiibay laba shay raxmadiisa hoggaan wanaagsan iyo bulsho midaysan oo ismaqlaysan oo meel wada jeeda siyaasadda meel iska dhiga ficiltanka meel iska dhiga wax kastoo naga dhaxeeyay meel iska dhiga maanta dhammaanteen waynaan u jeesanaa masiibadaas sidii aan uga hortagi lahayn masiibadaa sidii aan uga hortagi lahayn waynaan wada jeesanaa waxa weeye bulsho walba markay rabto marka inay cudurro ka hortagto dhibaato ka hortagto waxa ugu horeeya inay barato qaab dhismeedka iyadu ay leedahay hadday dalkeeda tahay iyo haddii bulshadu say u dhisan tahay ay tahay annagu waxaan leenahay magaalooyin waaweyn ma lihin oo malaayiin iskugu tagtay iyo gaadiid iyo maaragtay caalam isku wada xiran oo kubado xiran filimo xiran hoteelo xiran wax walba oo isku wada dhow annagu waxaan leenahay hawo furan miyi baan leenahay tuulooyin baan leenahay beeraan leenahay talada ugu horeysa ee aan ummadayda siinayahay waxa weeye wax kastoo dhiboona soo marayba waxaan uga badbaadi jirnay oo ku cayman jirnay miyigan in magaalooyinka waaweyn laga baxo in magaalooyinka waaweyn ee dadku ku badan yahay laga baxo in loo baxo miyiga in caruurta iyo waayeelka jilicsan oo xanuunkani weliba qofka uu ka jilicsan yahay buu kaga sii badan yahay laakiin ma daynayo dhalinyaro iyo qof kale in dadka lagu wacyigeliyo inay uga ka baxaan magaalooyinka waaweyn inay ka baxaan magaalooyinka waaweyn taasaa ka xoog badan sang aan xiranayno iyadaa ka xoog badan waayo culayskii iyo dadkii jilicsanaa oo dhan arintaas waxaan uga bixi karnaa waxaan u samaysannahay nidaam qabali baan u samaysannahay cuqaal baan leenahay salaadiin baan leenahay waxgarad baan leenahay waa digniin nin aqoon u leh maxaan dhahaa caafimaadka uu idiin soo gudbinayo walaalayaal magaalooyinka intii itaalkeena aan ka baxay xukuumadda waxaan leeyahay dugsiyada internet ba lagu barto waxba socon mayso waayo waalidkii iyo caruurtii iyo wixii way isku xiran yihiin waxaan ku talin lahaa gadaalba 2 bilood laga kabi karaaye in caruurta iyo sidii fasaxa marka hore loo qaadan jiray raxmadda ilaahay gubaan joognaa roob baa da-ay tuulooyin yaryar baan leenahay miyi furan baan leenahay dadkeenni aan kala firdhino taasu waa qodobka koowaad qodobka labaad ganacsato iyo shuyuukh waxaan ku talin lahaa inay fadhiga ka kacaan inay guddi sameeyaan inay kow aanay xukuumadda ku hadlayn dhaqaalaha
qof kasta oo wax haysta inay albaabkiisa garaacaan ilaahu muu haysto wax yar ha laga qaado muu wax badan haysto wax badan ha laga qaado maantayto waa in guddiga ganacsatada iyo shuyuukhda iyo waxgaradku ay sameeyaan ay aruuriyaan itaalkeenna dhaqaale si haddii ilaahayba keeno dhibaatadaas aan la garab istaagno howlaha xukuumaddu wado si aan ula garab istaagno maaragtay itaalkeenna waxaan qabsan karno aan isku taashano dowlad dibad yaanan waxba ka sugin jeebkeennay ku jirtaa itaalkeennu jeebkeennay ku jiraan waxaan codsan lahaa culammadu inay aada iyo aada uga hadlaan masaajidda ha furaadeen iyo yaanay furaan xag diin anuu ka hadli maayo laakiin anugu waxaan hubaa xanuunkaasi in qof kastoo taabtay sankiisa oo gacmaha saara maxaanaha sujuudda ka kale agtiisa hadduu ku neefsado hadduu taabto waayo sida ugu badan ee loo qaadaa waa maxay sida ugu badan ee loo qaadaa waxaa weeye xanuunkaani bahalkaani viruskani waa virus itaal daran ma safro meel fog candhuufta qufaca sanka maaragtay maxaan dhaha hindhisada waa ilaa mitir iyo bar dowladaha qaarkood waxay dhahaan ilaa 2 mitir kala durka ma idinla tahay dadkeenu inay 2 mitir kala durki karaan caqligeena guryaheena oo saxan wax ku wada cunayaan oo hal qol bay haystaane hal qol ku wada seexdaan waxa weeye marka waxa halkii ay ku dhacdo gacmiheen waxay ka mid noqonayaan sida hindhisada kuwa qaadaya maaragtay viruska halkay taabtaanba waxay kaga tegayaan virus kale kaga tegayaan halkay taabtaanba waxay kaga tegayaan virus kale kii kaa dambeeyey ee albaabka furaa markuu taabto halkiibuu isagiina maaragtay ka qaadiya xanuunkii aan idiin sheegaye faraha baan adduunku qaaday walaalayaal marka waa inaan gacmaheena mayrista ku badinaa mana ahan biyo keliya waxaa la xaqiijiyey saabuunan ku mayrnaa inay tahay ma aha inay nadiifinayso laakiin dufanka gacanteena dilaysa isagana dufan baa kor ka saaran isna waa dilaysa oo isagana waa baabi'inaysa marka waxa weeyaan calaamadihiisa saddexda shay ugu badan ma aha saddexda shay ha rumaysanina saddexda shay ee la dhaho maaragtay waa xumad waa qufac iyo neeftoo maaragtay in yar ciriiri culays galaysa ma aha xanuunkani waa infection kama duwana xanuunada durigu sida durigu kuula muuqan karaa lafa xanuun iyo muru xanuun buu kuula muuqan karaa shuban buu kuula muuqan karaa maxaan dhahaa marka waa xanuun sida xanuunada infectionada oo dhan maaragtay u dhaqmaya laakiin saddexda shay ugu badan ayaa ah qufacaan iyo dhisadaan iyo maaragtay arrimaha walaalayaal marka xanuunkani waa dilaa waana fiitaanka ugu badan ee qarniyadan la garanayo jermis sameeya weeye oo daqiiqada u gudbinaya oo qofba qofka kale usii gudbinayo maaragtay oo qof waxaa maanta jira xanuuno badan oo coronaviruska ah oo weli nool oo ka dilis badan kan laakiin maxay loo hadalhayn waaye waa kooban yihiin ma sii fidaan fidistooda yar kanse fidistiisii baa noqotay wax caalamku xakameyn lahaye maanta waxaad maqlaysa 50,000 berri waxaad maqlaysaa iyadoo loo booday 100,000 oo loo booday marka walaalayaal ma haysan annagu qalabka maantaan tirinay qofka inta hore aanu calaamadaha lahayn xataa waxaa la soo saaray in qaar badan oo kamidii ay qaadsiin karaan dadka isagoon wax calaamadada aanay ka muuqan laakiin wuxuu ugu badan yahay inuu qaadsiiyo xanuunka marka ay soo baxaan calaamadaha qufaca iyo duriga ay soo baxaan calaamadahan hindhisada iyo waxa ay soo baxaan marka uu gaaro xaalad adag waxaa xaalad adag gala laba qaybood 20% in ku dhow baa xaalad adag gasha xaaladaasoo 16 kamidii dhakhaatiir isbitaalada la dhigaa 4 kamida 100%bana waxaa la dhigaa ICU-da la dhigaa 20% qof waxay mashquulinayaan bal 300,000 isku dhufta 20% ku dhufa bal dalka Mareykanku inuu ka bixi karo inuu intaasoo IC intaasoo sariir intaasoo dhakhtar intaasoo neersin intaasoo magaciis weliba waxaa kaaga daran cidna reebi maayo talyaaniga oo qura 70 in ku dhow oo dhakhaatiira baa dhintay oo naftii ka dhacday kuwii la dagaalamayay marka walaalayaal xanuunkan yaanan yaraysanayn xanuunkan yaanan odhan
waxba naga qaadi maayo baskaan wada raacino hal qof keliya oo hindhisaya hadduu la socdo dhammaanteen waa wada qaadayna maarata inta baska ku jirta halis bay ku jiraan wixii aan idiin sheegayay marka waa in la kacaa xukuumadda xil weyn baa saaran waa hogaankii ummaddana xil baa saaran ummaddu waxaa weeye qof walbaba inuu mas-uul ka yahay naftiisa iyo nafaha kale ee walaalihiisa inuu mas-uul ka yahay in ismaqalkeenu bato inaan dagaalku meel noogu wada jeesto xukuumaddana waxaa saaran hogaamintii baa saaran xadadka inay xirto cir dhul bad meeshuu doono ha ahaado waayo haddaad meel kamida ay ku furan tahay halkaasi kasoo degayaan dadka qabaa waxaa saaran guddiyadan waan ku ammaanayaa maaragtay wacyigelinta in la xoojiyo waxaa kaloo meesha yaalla bulshada kale oo dhan hadday tahay dhakhaatiir hadday tahay wariyaasha idinka idin ka mid a hadday tahay maaragtay social maxaan dhahaa arrimaha guddiyadii bulshada dhammaantood waxaa xil saaran maanta in loo jeesto oo la iska daayo maaragtay wixii dhexdeena ahaa oo loo wada jeesto masiibadaas anoo ilaahay ka baryaya inuu naga badbaadiyo laakiin